السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن السلام يا ميل والبو ديغا داونيسان إيسي والبو دي مقليسان بموقال كان مانتاي waxaanu baldoonaa bal inuu ku fiirino labada arrimood oo hadda ugu dambeeyay oo dalka markaa ka taagna marka ugu horeysa maalintii shalay ahayd weli habeen bay tahay ayaa baarlamaanka xamar fadhiya horena ugu fashilmay inuu dalkaani ka saaro mashaakilaadka tirada badan ee markaa haysta ayaa wuxuu meelmariyay baa la yiri xeerka doorashada taasoo keeni doonta inuu xasan soo qoro guddi horey loogu heshiin waayay guddigaas oo leeyahay marka doorasho one man one vote ayuu qabanaya hadda marka xeerkii baa la yiri waa la baahsi maxaa ku xiga inuu xasan soo qoro guddigii ayaa ku xiga ka bacdina uu yiraahdo guddigaana guddi heer qaranaho marka doorasho ay qabanaya arrinta la yaab kale ayaa marka waxay noqonaysaa xildhibaanadii meesha joogay xataa xildhibaano kooramkii buuxin kara ma aysan ahayn xildhibaano xataa 150 xildhibaan gaari kara ma aysan ahayn wuxuu aadan madoobe sheegay in ilaa 170 xildhibaan ay markaa baasgareeyeen sharciga ayuu sheegay taasoo runtii la yaab leh sida ummadda maankoodii aqriyadooda loogu cayaarayo waxaa kale oo ka maqnaa gudaha baarlamaanka xildhibaanadii Jubbaland ka imaanayay iyo kuwii Puntland ka imaanayay 80% waa ka maqnaayeen meesha laba dowlad goboleed ayaa xildhibaanadoodii iyo maamuladoodiiba diidan oo banaanka taagan cidda uu xasan u qabanayo doorashada marka ma cid gooniyaha ma doorashooyin isbarbar socdaas ayaa la qaban doonaa halkee dalka loo wada awl baayada meesha ka lagu haynin oo dowladda aysan xamar soo dhaafinin ayaa haddana midii xamar fadhiyay oo gobolada aysan ku qabinin ayaa maanta qaab loo dhaqaajiyay garan laaya sidaas uu xasan u qasaya lug iyo gacan buu ku qasaya shaati buu tolanayaa la arkayo halka lagu xiranaya inuu shaatiga ma garanayo waa qardajeexi marka ugu weynaa inuu aragno in baarlamaan xataa aan koormka buuxin aadan madoobe iska xariiqo aadan madoobe wuxuu noqday markii hore xataa ayaantii hore uu joogi jiray xataa maanta ayuu kasii foolxun yahay aadan madoobe sababta madoobe loo yiri waxay muujinaysaa marka uusan ahayn qof damir la ayay muujinaysaa ninka sheekh shariif sheekh axmed iyo cabdiraxmaan cabdishakuur oo baarlamaanka ka tirsan ayaa warbaahinta ka hadlay waxaana si xoog leh ee u naqdiyeen halka dalka uu xasan sheekh maxamed ku wado anagiiba xataa nagu dayda xataa anagiiba taagay arkaysa waxyaalaha ay naqdiyeen waxaa ka mid ah halka dalku ku socdo kooramka sharciyada loo dhamayn iyo arrimaha yar waxaa la yaab leh marka sida uu xasan u doonayo haddii muqdisho raggii la joogay ee shalay mucaaradka la ahaa uu ku qancin laayahay xasan sheekh maxamed waxa uu dhoodhoobayo hadduu sheekh shariif iyo cabdishakuur ku qancin laayahay sida madoobe iyo dani iyo dadka loogu qancinayo anigu ma garanin waxay arrintan markii la wado oo dhalaysaa inuu xasan darbiga soo taabto meel la yaqaano ayuu socdaa rag baa kaaga horreeyay hore u shaqayn weyda marka darbi la yaqaano inaad maalinba qof darbi madaxa kusoo dhufto maxay macnoo samaynaysaa waxay muujinaysaa marka inaysan mas-uuliyad aysan jirinin waxaa kaloo ka hadlay arrintaani madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Farmaajo isagoo dhowr arrimood oo kala duwan ayuu arrintaasi uu ku sheegay wuxuu yiri dastuurkii xasan lagu doortay naftirkiisii wuu tuuray baarlamaanka dalku kala qaybiyay arrintaana waxaa ka imaan doonta buu yiri in ummadda oo dhan la kala qaybiyo wixii ka yimaado cawaaqib xumo ah xasan sheekh maxamuud ayay aabiyo hooyo leedahay buu Farmaajo asagoo doorashada marka xasan dhoodhoobayo nimankii xil kala raadin lahaa musharaxiinta ma doonayaan maamul goboleedyadii labadii mataqaanaa Puntland iyo Jubbaland banaanka taagan yihiin kuwa kale waa aamusay laakiin ayagu wadidan yihiin reality sida lafta garan nimanka wadidan yihiin laakiin ayagu xoogaa waxay isleeyihiin bal dib isku dhajiya sida Axmed Madoobe aan horey ugu ogeyn inuu banaanka istaagi doono ayuu lafta gaasna banaanka istaagi doona inta waxa doorashada u qabanaya waa la yaab weeye waxa xasan sheekh maxamuud uu wado waxa ay kaga filan ra'iisul wasaare dhammaan dalka oo nin adeerkiya uu kismaayo haysto ayuu xasan is qaaday oo is dhigay oo kayaanka bariyay oo amisonta la hadlayba kismaayo la geen waayay xamse si doorasho loo geenayaa dalka qaybiisa kale way marka ninkii ay shalay xulafada la ahaayeen madoobe haddii maanta nin adeerkiya kismaayo la geen waayay halka xasan doorashada geenay waxa xagee aqliga ummadda in lagu cayaaraa baa la barto ummadda waa la kala qaybsanta waxaan arkay qolooyin kala duwan oo madoobe u sacabtumaya oo waayo markaan erina qaar baa waxay leeyihiin dee xasan buu iska dhicinaya ma ummaddaas dowladda noqon karta lehbeen ku dhaariyay lama yaqaan cid waxay aaminsan dadka madoobe maanta waxa uu samaynayo oo shalay sameeyay waxay maanta xalaal ku noqonayaan
because حسب ولا دقاليا اوكي ورمينا قديد لهين ورمينا أركينين waxa madooba sameeynay lama arkayo ninkaasa la dagaashay oo ku raacaya oo umada aan dawladnimada ka sugayn xaruntii dhibaato qaba kuwa dadka dawladnimada ka sugaya 40 sano dalka u dhaaf fadhiya lana kala safan ee markaa u buraanburayo kuwaas caawa dhibaato haysata dhanka kale markii aad fiiriso Axmed Madoobe wuxuu soo saaray wax loogu yeeray jadwal soo saaray jadwalka Axmed Madoobe soo saaray maanta anu wali bisha nakayga 16 bay ka tahay 15 maalmood bisha ka hartay hatta ay dhamaanin 25 16 10 maalmood ka bacdi madaxweynaha noqonaya 10 maalmood way from 16 iyo 25 way hatta ma dhama waa 9 maalmood way 9 maalmood ka bacdi madaxweynaha ahay buliyay xasan ninka loo yaqaan Axmed Madoobe dad badan baa arinta kula socda markaan weydiiyana tii xasan iska dhicinaya wala dheer wala bixiyad bilay حسين وهلا تحجر تطبعا بعيونا عموسان أو شرح مدوبدي دنا حلا مسيء because حسب ولا دعشني قد يتكلم بشرط وحاران بدنا بشرط ما كان في رسوا واحد مدوبة وصام المروقي حركة يسوي حالة يرلمي تومكا إلى لحية تومكا رد تومكا على ضعفة وعيقرب على سمان يا بلير هاي تضوي تومكا بشة أو برية وعي كذا بيا حال سوق يا بليري وعي قلني أداش ولا سوق يا هاي صعو شلعتك بشة بتحبني الواقع بلير معلك هالرئيسان حال قبل يا بليري معلي هذا ليسكي مشارحينتي واد مدحويني حاجه مدحويني كيا كسماي مدحويني كيا حسن يعصو نبا شاعتي بو تورنيا حسن marka shaatiga asagu uu rabo tasho buu xamado u diiday waliha ta qatoon ana tooranay akadu mu tolokris aragtida xasan waa inta shalay muxuu ku taageeray xasan sheekh maxamed Madoobe farmaajo diidan yahay ku taageeray maanta muxuu ku diidan yahay aniga idageyso kayga umdaha lama tolan karo oo ninta imisa sanaynu ku jireenaa Axmed Madoobe saxan iyo Xasan Baxsan hal ma isba ku jirana wasaabta ay umada la duleysay saabta weey wasaabta ay la kicilaa saabta weey dawladda ma noqon kayra badna cas umadaan lahayn principle madaan lahayn waxaan wax xaraan waxaan hore u diidnay maanta afan ku yeela ma hayo qof aan lahayn ninka doonay umada inuu hogaamiyo waa ninkan awoodin wixii sharcan taageeray maanta ma diidi karo malahan xushmada naftiisa uma hay Xasan Maxamed inuu leenahay madaxweyne maanta waa yeelaya birwadi because wuxuu arkayaa wax alla wuxuu sameeyo kuwa raacay xarkii kuwa yar oo daba socdo afar ah dadka daba kala tagay koox yar baa daba socdo maana jifidiisa ay tahay ba ka daba baraamburays Xasan Maxamed intaas aan ku soo koobaya dalkan god buu ku dhacay Allah badbaadiyo. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.